wararka naga soo gaaray degmada Runugood gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay in maanta lagu soo xiray degmada Runugood gobolka Shabeellaha Dhexe 3 nin oo aan fuli waayay hawshii loo idmaday taasoo ahayd ayax buufinta ayaa si weyn uga socda degmada Runugood gobolka Shabeellaha Dhexe 3 nin ayaa laga soo qabtay deexda halkan loo yaqaan Bardaga Cali Xasan oo bari ugu aadam taana Saarax gudoomiyaha degmada Runugood gobolka Shabeellaha Dhexe Cali Suubsiga ayaana halkaas ugu tagay iyagoo nimankan la sheegay hawshii gabay ee fafadha gudoomiyuhu wuxuu sheegay sababtii hawsha ugu waayeen balse ay ku sheegeen inay hawsha ka caajiseen sidaasna waxa amarka lagu bixiyay in la xiro halkaas ayaana laga soo qaaday waxay caaw ku xireen saldhigga degmada Runugood gobolka Shabeellaha Dhexe oo galabta 10 saac la soo gaarsiiyay 10 Diseembar 2020 wararka dadka deegaanka ayaana Runugood media xaqiijiyay oo warkaan waa mid xaqiiqa saxaabta sharafta leh qiimaha leh waxay sheegayaan in share iyo like iyo comment ay saaraan beedka Runugood media ayna kala kiciyaan fadlan ay booqdaan YouTube-ka Runugood media waxaad beedka Runugood media ka heli doonteen wax walba oo halkaas ku saabsan mar walba waa saaxiibka inaan ka soo hadlo degmada Runugood iyo dhammaan Soomaaliya caalamka oo dhan mahadsanidin share iyo like-ta yana ka xasidin